السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبي غير سومالنا دي صحافته وسلامية وعن مانت صحافته هرمي إن البوغاديو وحال صحافته هرمي إن البوغاديو برلمان الصومالي لان لبدي ساقلبا قولها قوتي دي قولها وكيلة وما انتقاطي طلابة تاريخية طلابة سوء inay diideen inay ansixiyaan maanta xukunkii military ama xukunkii degdeg ahaa ee lagu soo rogayay gobolka Sanaag. baarlamaanka waxaan ku bogaadinayaa in tallaabadaasi ay ahayd mid ay sharciyadda ugu hiiliyeen, mid ay shacbiga ugu hiiliyeen. waxaa leeyahay baarlamaanku dadkiina u hiiliseen, sharciga u hiiliseen. waxaana shacbigu uu xasuusnoon doonaa tallaabada taariikhiga ah ee qaadeen. waxay u hiiliseen dhammaan shacbiga reer Somaliland, waayo xukunka degdegi kuma koobnaadeen gobolka Sanaag. gobollada kale ku xigi lahaa, awdal baa ku xigi lahayd. marka inaad shacbiga la dareen noqoteen maanta waan idinku bogaadinayaa. waxaa u hiiliseen guud ahaanba dadkii ku noolaa gobolka Sanaag degmooyinkiisa lagu soo rogayay xukunka military ee kale ahaa Garadag, Elf Weyn iyo Arigaabo. waxaan xukuumadda uga digaynaa inay isku daydo xukun military oo aan golayaashu xalaalaynin oo aan sharci ahayn inay shacbiga ku fuliso. waxaan kaloo dhammaan shacbiga reer Somaliland gobol kastay joogaanba ugu baaqaynaa inay ilaashadaan xasiloonidooda iyo nabadgelyadooda. waan ugu baaqaynaa gobol kasta oo ka mid ah Jamhuuriyadda Somaliland. ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland waxaan ugu baaqaynaa inay sharciga u hoggaansamaan, inay shacbigooda u turaan iyo inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo xasilooni darro iyo amni darro ka dhalin karta dalka.